talo yaa kala saara oraahyada faarax gololey ee sugan iyo kuwa loo saariyey. faarax gololey allah u naxariistay wuxuu ahaa aftahan Soomaaliyeed oo oraahyadiisa ilaa iyo maanta la adeegsado. dhibaatada ugu weyn ee jirta waxay tahay inta uu oday faarax yiri iyo inta loo saariyey waxa badan inta loo saariyey. oday faarax oo arinka cabirayo wuxuu yiri waxa magaciiga loo adeegsadaa sida farangaboolada warqada la diraayo loogu dhajiyo si oraahdaasi qiimo loogu yeelo ama u noqoto mid baxda. taas runtii khatarteedii ayay leedahay, gaar ahaan oraahyada xasaasiga ah ee loo saariyey oday faarax. waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa jiilka ama faca cusub ee dhalinyarada ah, kuna abuuri kartaa fikrado qaldan oo aan qalbigooda u fiicneen. aniga lafteeda oo muuqaalkan sameynayo saameyn weyn ayay ugu yeelatay oraahyada faarax gololey. waxaan xasuustaa anigoo 15 jir ah markuu iskuulka fasaxa jiro aabahayga ayaa waxaan u raaci jiray baqaar uu ku lahaa Xamarweyne. waxay caadadu ahayd inta aan baqaarka la furin odayaasha ganacsatada iyo odayaasha macaamiisha ayaa waxay ku qaxweysan jireen banaanka ayagoo ka hadlayo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha suuqa. mar walbana faarax gololey oraahyadiisa ayay dhihi jireen. maalin maalmaha ka mid ah ayaa ganacsatada qaarkood ayaa afka waxay gashadeen tubaakada la takhsiinsado oo magaadka laga sameeyo. markaasaa mid ganacsatada ka mid ah inta soo booday uu yiri faarax gololey ayaa la weydiiyey maxaa uu cuni weysay tubaakada afka la gashto. markaasuu faarax gololey ku jawaabay waxaan arkay nin habar gidira oo tijaabinayo oo isla markiiba iska tufayo. waxaa meesha iga cadaato yiri inay faa'iido lahayn. odayaasha runtii qosol ayay la dhaceen, laakiin waxay dhaheen oraahdan ma aha kuwii uu faarax gololey yiri, waxay ka mid tahay kuwa loo saariyey. si kastaba ha ahaatee aniga ka dhalinyaro ahaan maalintaas oraahdan waxay ugu abuurtay fikir ah in meeshii maraq ku jiraba ama faa'iido ku jiro reerkan laga raadiyo. taasna waxaan ogaan doonaa markaan London imaaday ayaa waxa dhacday. markaan jaamacadda apply gareynayay ayaa waxaan doortay maado laba shaki igu jiray. maadadii markuu jaamacadda bilowday maalintii ugu horeysay fasalka waxaan ku arkay laba wiil Soomaaliyeed oo aan isbaranay, aan saaxiib noqonay. markaan isxog wareysanay oo xal weydiinay oo ay sheegeen inay yihiin ka soo jeedaan reerka habar gidir, isla markiiba qalbiga waxa ku soo dhacay maadada aad dooratay maraq ayaa ku jira, maxaa yeelay reerkii ayaa joogo. taas ayaan dareemay saameynta ay ugu yeelatay. saaxiibadeeda sheekadii aan u sheegay, qosol ayay la dhaceen. ilaa ay haddana saaxiibaan nahay. laakiin waxaan ku boorinayaa hadduu jiro qof alla qofkii awooda inuu tixraac ku sameeyo oraahyada oday faarax oo yani kuwa sida dhabtaa uu yiri iyo kuwa loo saariyeyba, يعني inuu ku dhaqaaqo haduu alla yiraahdo. sidoo kalena ereyga qabiilka marka laga hadlayo waa inaan ku fiirinaa indho iyo qalbi ka maran laab la kac iyo caadifad sida odayaasha hore ay u fiirin jireen. waxaan kaloo ka afeefoonayaa wixii khaladaad oo muuqaalkan aan ku sheegay, maadaama arrimaha muuqaalkani uu taabanayo uu yahay arrimo xasaasi ah oo aan Soomaalida weli ka xoroobin laakiin u baahan in laga hadlo. waa walaalkiin Baazi Busuri iyo barnaamijkii horumar ummadaada.